maanta walaahi maalin adag baad 4 saacadood baa dhiigi baxayeen ma garatay lugiga gacan lugtuna waa jaban tahay 4 saacadood baan ku dhaxay cadowga iyo daash cadowga dawladda xagga mushaalka karo geesi haddaad maqasho laba maaha geesi haddaad maqasho laba maaha ninkaas hadlaya eed maqlaysaan waa mid ka mid a askarta daraawiishta ciidanka Puntland ee howlgalka kaga jiray buuraleyda gobolka bari muuqaalkiisa markaan daawaday run ahaantii aad baan u qiirooday sababtoo ah isagoo lug iyo gacanba ay jaban tahay ciidankiisina aan gaari karin kii argagixisadiina u muuqdo oo xabadii ay dhacayso ayuu haddana video iska duubaya xabadiina waad maqlaysaan dhaqdeeda waad maqlaysaan dagaalkii shalayta weeye buraleyda calmiskaad ee gobolka bari ee khasaaraha xooggan loogu geystay kooxda khawaarijta daacish waan dul istaagi doonaa waxaan dhanka kaleeto iyadana aan rabaa inaan idinla wadaago xalay laguma kala nasanin duqaynta cirka ayaa hooy diyaaradaha F-16 ayaa bahal saa ugu harqinayay iyo madaafiicda ciidanka Puntland ee lugtaba gig ilaa waxaa la wataa qoryihii dhishikaha ee gawaarida la saarayay garbahay ku wataa wiilashu oo buurahay la faranayaan xalay iyagana lagama seexanin si nigta loogu hayay meelo lagu tumeeyey inay isku urursanayeen iyadana waan dul istaagi doonaa waxaa dhinaca kaleeto mid iyo labo rabaa inaan ka dul istaago saraakiisha ciidamada Puntland iyo raggii ku shahiiday dagaalkii shalayto iyo dhaawaca kabtan Ayuub iyadana mid iyo labo ayaan ka dul istaagi doonaa deegaanadii shalay lagu dagaalamay iyo xaaladda guud ee saaka iyadana wararka naga soo gaaraya waa idinla wadaagaya soo dhawaada muuqaalka like saara fogeeya meel dheer ka tuura aynu ku bilownay shalay dagaal aan lagu kala nasanin 9 saacadood oo xiriir socday gabalka la isku ritay ilaa haddana madaafiic iyo waliba duqayn raaxada looga qaaday argagixisada khasaaro dhibasho iyo dhaawacna sababay ayaa shalayto dhaxmaray ciidanka daraawiishta maamul goboleedka Puntland iyo sidoo kale kooxda khawaarijta ee ciribtirka ciidamada Puntland ay ka wadaan ee buraleyda gobolka bari lagula dagaalamayo dagaalkii shalay waa ka duwanaa dagaaladii hore dagaal dhinacyo kala duwana oo deegaankii markay soo galeen ciidanka daraawiishta Puntland ay kooxdu ugu talagaleen in horta ay miinooyin ila qaraxyo ay ciidanka ku haraagaan buu ahaa ciidankii markay deegaanka soo galeen oo waxa weeye howlgalkii deegaankan hadda dhariin iyo tog jacayl iyo aagag badan buu ahaaye ilaa iyo haraaryo weyn iyo haraaryo yar iyo dhulkaas waxa weeye ay kaabiga ciidanku usoo galeen qaraxyo iyo miinooyin iyo balaayo ayaa waxa weeye yay bilaabeen kooxyo mar horena wadooyinka ay ugu diyaariyeen laakiin ciidanku gawaariba ma wadaninba gawaariba marka laga reebo gaari uu saarnaa taliya yuxul oo isagana dhaawac uu soo gaaray marka laga reebo micnaha gaariga wax soo gaaray askarta iyo raggii la socotona waxba ma soo gaarine markii laga reebo oo de meel damba markii laga reebo laakiin dagaalkii shalay dhacay wax dhibaato weyn waxa weeye xagga gaadiidka markii la yiraahdo ma soo gaarin sababtoo ciidanku meeshan hadda dagaaladu ka dhaceen waa dhul buuraley ah waa dhul togaga waa dhul uu gaariba soo geli karinba aad iyo aad bayna u adag tahay run ahaantii dhulka dee markii laga hadlayo oo la tilmaamayo dhul ma aha caadi ah oo dadku ay si caadi ah ugu dagaalami karaan ama gawaaridu ay geli karaan waa dhul la faranayo oo buuraa oo ka dhex ka dega oo 10 kilomitir oo buurta haddii maanta ciidanku ay lug ku gaadhaan ama ay waxa weeye xoreeyaan 200 kilomitir oo la xoreeyay yay ka dhigaalan tahay markii la fiiriyo dee dhibaatada iyo dhibta ay leedahay buuruhu ay leeyihiin si kastaba dagaalkii shalayto khasaare xooggan baa horta kooxda argagixisada la gaarsiiyey meydadkooda waad ku aragteen telegramka anigana waa kan idinla wadaagay warbaahinta soomaalida oo dhan oo tabinaysayna iyadana dee waa wad aragteen baa filaya taasi marka lagu noqon maayo xagga Puntland khasaare maxaa soo gaadhay deegaanadii lagu kala nastay waa sidee halkee hadda la kala marayaa xalayto jabinteena baa kooxda la gaarsiiyey intaas baa hadda soo korodhay oo ugu muhiimsan xagga Puntland horta saraakiil baa ku dhimatay saraakiilla waa ku dhaawacmeen askarna waa ku dhimatay waana ku dhaawacantay khasaaruhu walow dee uusan aad u sii badanayn oo sida
dee kooxdaa ku dhacday oo kale aysan hayn haddana dhimashana waa jira dhaawacna waa jira warmurtiyeed ayaana ka sugayna xagga dowladda khasaaraha intuu leegyahay iyo tirada dhimatayba walow weli aysan baahinin wararka hordhacee naga soo gaaraya hoose ma raba inaan halkan aan ku baahino laakiin dhimashana waa jirtaa dhaawacna waa jira weliba taliyaal baa dhintay taliyaalna waa dhaawac uu ka mid yahay kabtan ayuub walow dhaawaciisa uu sahlan yahay qeybta kore jirkiisa ayuuna dhaawacu kasoo gaadhay wararka waxay sheegayaan in gacantan ay xabad jebisay isaga iyo taliya kaleeto isagana gacanta ay jebisay inay jirto ilaahay ha u bogadhayo caafimaad ilaahay ha siiya ayaan leenahay raggaasi halgamaaga kuwii u dhintay ee shahiidayna dee janatulfardowso ilaahay ha geeya ayaan leenahay ilahay baan u baryaynaa eheladii ay ka tageenna sabir iyo iimaan allah ka siiyo taasi waa midda xalay waxaan ogsoonayn oo muuqaalkeenii aan idinkula wadaagay kan ka horreeyey in lagu kala nastay oo micnaha lagu kala nastay aanan dhihin lagu kala istaagay xilli fiida oo waa weliba mugdi noqotay deegaanka la yidhaahdo haraariyo weyn iyo haraariyo yar halkaa in waa dagaalada ugu adag meesha ay ka dhaceen oo kooxdii iyagoo la ceyrsanayo dee aasku u madoobaaday halkaa lagaga hadhay iyaguna ay carareen oo farxadkooda ay sii carareen lagama hadhin horta ciidanku halkaas difaac bay ka xidheen laakiin maxaa socday madaafiic gantaallo waxbaa xalaysaa lagu yidhi diyaaradaha waxa weeye ee ka qayb qaadanayay maalmihii lasoo dhaafay duqaynta sida hadda aad arkayseen muuqaalada waa muuqaalo habeenimo la duubay ayaa hoy goobihii ay ku dhaadhaceen ee la arkayay iyagoo kusii dhaadhacaya lagu tuunsanaa baa xalay lagu waalay dab 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 xalay waxa gaadhay weli khasaaraha lama soo tabinin oo ciidanku saakay dareerayaan oo meeshii gaadhayaan goobtii xalay lagu duqaynayey saakaa la rabaa ciidanku inay ka warkeenaan oo ay galaan efentariga dhulka lugta inay galaan laakiin xalay wixii ku dhacay waxaa xalay ku dhacay nimanka wax yar maaha habeen dhaweyd waxaan ogsoonayn 46 ajaanib u badan in la dilay caaway ka dar xalay bay ka darnayd maantaana xogta rasmiga la heli doonaa oo hadda waa min subaxe maalin weyn baa la heli doonaa horta waxba looma reebanin ilaa dhulkii ilaa iyo 50 kilomitr isku wareega ayaaba la gubay lagu gubay oo buraha hoostooda oo dhulkii ay kusii cararayeen shalayta dagaalkii dhacay ay kusii cararayeen waa la arki doonaa horta meydadkooda daadsan waa ka war sugaynaa laakiin xalay laba kala nasanin ciidankan efentarigana madaafiicda iyo waxa way baasukaha qoryaha waaweyn ay watay garbaha ku watay dhishikaha ayaa xaloo dhan iyo bambaanooyinka gacmaha laga tuuro kuwa darontay waxa weeye iyagaa laga bartay waxa wax lagu rakibee qaraxyada ciidanku gantaalla ay ku rakibaan ayaa la dirayaa gay meel baa lagu qarxay gam hadal balway marka xalay diyaaradihii iyo ciidanka efentariga Puntland ma aysan nasanin nigta laga geliyo horta kooxda khawaarijta khasaare lixaad la gaadhay waa sugaynaa insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa kii lagu soo afjari lahaa ee ajaanibta soo duushay cadowga lagu soo afjari lahaa inuu noqdaan ilaahay ka rajaynaynaa howlgalku wali waa socdaa waa wajiga labaad si habsame ayuu u socdaa dee meel dagaal ka socdana dhimashana waa yeelan dhaawacna waa yeelanayaa dee waxa weeye taayadu shika kuma jiro inta dhibatay waxaan leenahay dee dhulkooda u dhinteen shahiid weeye ilaahay jannatul firdaws geeyo inta ku dhaawacatayna waxaan leenahay ilaahay ha u bogadhayo inta nool dee waxaan rabnaa inay gobonimo iyo sharaf ay ku noolaataan doonayna howlgalku marka Puntland horta sidaasuu u socdaa shalayna howlgalku sidaasuu wax u dhacay maantana waa min subax dee ciidankuna kolley ma nagaan doonaan meel lagu nagaado ma jirto waad maqlayseen askarigii hordhaca ee nii soo geliyey dagaalkii shalay buu ku jiray waa dhaawacmay lug iyo gacan bay jabisay ciidankii marka may istaagina waa la dhaafay ciidankii way dhaafeen oo waxa weeye dagaal baa lagu sii jiraa kooxdii ma soo daba mari doonaan ma dib bay ka soo geli doonaan ma dhabar jabin bay ku samayn doonaan lama oga keligii baa muuqaal wakaa iska dubanaya waa geesinimada iyo feejignaanta iyo sidoo kaleeto sida uu ugu qaracsan yahay dhaawacsanidiisa geesi haddaad maqli jirtay waa ninkaasoo kale geesi laba maaha waa ninkaasoo kale lug iyo gacan bay jabisay waa dhiig baxaya suunkaydii baa ii noqday dhiig joojin buu leeyahy waa suunkuu qabay ilahay baa nagu dhaariya firi ma suun baa dhiig joojin noqon karaa waa suunkii uu qabay baa ule suunkii baa ii celiyo dhiig joojin ii noqday dhiig joojin haddana wuxuu leeyahay warbiyihiina waa soo hilmaamay agabkii kale loogu talagalay markuu qofku dhaawacmay inuu isku waxeeyo askartu way wataane iyadana waa kasoo tegay buu yidhi dhibkaas ay qabsaday buu yidhi maanta xaaladii ugu adkeyd buu yidhi marka waa la soo qaaday dee hadda waxa weeye waa askarta dhaawac uu ka mid yahay maadaama lug iyo gacan ay jabisay waxaa la sheegaya inuu askarta dhaawaca uu ka mid yahay si kastaba
dee waxa weeye waa wiil dhalay weye wuxuu tusiyey inaysan meeshan calaacal iyo cabsi toona oolin wuxuu tusiyey in uu ku faraxsan yahay xataa uusan dhib u arkinba dhaawaca soo gaaray uusan dhib u arkin wuxuu tusiyey lahaansho iyo wadaniyadnimo ayuu tusiyey kooxdii khawaarijta ahayd iyo ummadda kale ee soomaaliyada reer puntland ee dagaalka ku jirtaba si kastaba dagaalku weli waa socdaa ma istaaga puntland go-aankan ay qaadatay ee guulaha badan laga gaadhay go-aan fajac iyo layaab ku noqday soomaalidu noqday waa mucjiso wax kaloo dhaho garan maayo sababtoo ah buurahaad aragtay iyo togagaad aragtay ayay ciidanka puntland keliya oo federaal la soconin oo maamul goboleed la soconin oon calaacal iyo oohin iyo qaylo toona lahayn baa buuraha saa loo faranaya oo kooxdii lagu waarsanaya ajaanibtahaydee cadowwaahidee dhulka kusoo duushay howlgalku marka waa socda waxaa ilaahay ka rajaynaynaa inuu guul uu kusoo gabagabeeyo wixii kasoo kordho waynu eegi doonaa